iyadoo ay wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya ay ku qornayd shalwalka shaqada isxilqaan ee dib loogu dayactirayo tiyaatarka qaranka Soomaaliya ayaa madaxda wasaaradda horkacaya shaqaalahu ay soo gaadheen xarunta tiyaatarka shaqaalaha wasaaradda iyo madaxdooda safaf dhaadheer u galay shaqada isxilqaan qolaan madowna ka soo gurayay ciidda kuna dhawaaqaya heesaha la qaado xilliga lagu jiro hawlada waxaa xusud mudan in xilligii lagu guda jiray shaqada isxilqaan uu roobku da'ay balse shaqaaluhu dhag uma jaraqsiin oo ay ku faraxsanaayeen raxmaadka eebba ugu daacay mas-uuliyiinta wasaaradda iyo shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin kana dhabayn doonaan ballanqaadkii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shaqaalaha wasaaradda aad loo abaabulay cudud aad u wanaagsan shaqada way ku soo galeen waqtiga shaqada loogu talgalay oo 2 saac ka hor ay yimaadeen oo 1 saac subaxnimo shaqaalaha xaadir ay ahaayeen shaqada ilaa haddana way socotaa shaqo loogu talgalay 3 maalmood meel lagu nadiifin lahaa saacado ku nadiifiyeen waxaan aad ugu mahadcelinayaa shaqaalaha guud ahaan ee wasaaradda beeraha waayo shaqaalaha wasaaradda beeraha wuxuu iskugu jiraa shaqaale xafiisyada ka shaqeeya iyo shaqaale gobolada ka shaqeeya xitaa waxaa yimid shaqaalihii gobolada nooga shaqeynayay ayagoo ayidaayo dekreetadii ra'iisul wasaaraha iyo wareegtadii kale ka soo baxday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxaan soo aragnay markaan iska baabi'inay wixii nagu dhacay dhibkaan aragnay shaqo la'aan shaqaan weydiinaynaa xafiis laga shaqeeyana ma leh dhismaha hadda aan wadno waa boqolaal shaqaalaha meeshay ka shaqogeli lahayd maalinta la dhammeeyo intaasoo boqoloo shaqaalaha ayaa ka shaqogelaysa xafiis kastoo baaba'sanna ummaddii ka shaqeey laheeda bannaankay taagan tahay marka inaan dib u dhisno si shaqadii u noolaato si dib muxuu ahay shaqaalihii u shaqaaloobaan oo loo helo meel ay ka shaqeeyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka xaamud cali xasan ayaa dhankiisa sheegay in ay wasaaraddu diyaar u tahay kana midho dhalin doonto barnaamijka isxilqaan iskaa wuxuu qabso waa barnaamijkan iminka madaxweyne farmaajo iyo barnaamij ministerka xasan cali khayre ay dib u soo noolaysiinayaan ee ummaddii la tusayo wixii ay iska dumiyeen ee qacmahooda ku dumiyeen in dib iyagu qacmahooda ugu dhisaan waa ogtihiin in badan qacmahooda dadku lagu dhisay iskaa wuxuu qabsaa lagu dhisay qacan iyo jeebba dadka ayaa bixiyey dhanka kale maamulka gobolka banaadir ayaa xarunta tiyaatarka markii labaad soo gaadhsiiyey agabka dhismaha iyagoo kaga qayb qaadan doona dib u dayactirka tiyaatarka qaranka waxaana kala wareegay agaasimaha arrimaha bulshada xafiiska ra'iisul wasaaraha ahna isuduwaha shaqada tiyaatarka ugana mahad celiyey sida ay mar kasta maamulka gobolka banaadir u garab taagan yihiin dib u dhiska tiyaatarka cabdirasaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho